guud ahaanba shacabka magaalada Burco waxa ay ku soo labisteen oo ay ku soo xareen jirkooda iyo hugoodaba calanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad moodaa in dadka qulubtooda iyo caqligoodaba ay si fiican u gashay oo haba yaraatee Soomaalilandnimada lagula gorgortami karin arday oo ka tirsan ardayda wax ka barata dugsiyada hoose sare ee magaalada Burco waxa ay jidka weyn ee halbowlaha u ah magaalada Burco ku marayaan lug socda iyagoo guud ahaanba ku soo labisan kuna soo xarray jirkooda iyo hugoodaba calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ardayda magaalada Burco iyagu si nidaamsan u dabaaldegaya wadooyinkana u maraya si habaysan ayaa koox u marayay iyo dugsi iyadoo ay horkacayeen ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidamada militariga booliska iyo asluubta kooxaha baanbooyda ayaa iyagana waxa ay tumayeen dhawaaqa raaxale calanka Soomaaliland ayaa waxa lagu soo xardhay madaxa timaha jirka iyo huwa guudba hablaha iyo wiilasha daada yar ee qurxoon ee reer Burco ayaa waxa ay muujiyeen in maanta ay tahay maalin qaran Soomaaliland aanay gorgortan ku jirin shucuurtooda iyo dareenkoodu waxay ahayd maalin ay ka muuqatay guud ahaanba maanta wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Nuur Caraale Door wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdilaahi Cumar wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi duqa iyo barasaabka Burco ayaa dadka reer Burco kala qayb galay munaasabadan oo ka dhacday madaarka magaalada Burco ah goobta loo asteeyay iyadoo wasaaradda duulista iyo hawaduna ay qabanqaabada kaalin muuqato ku lahayd Soomaaliland waa qaran guul ah waa qaran gaamuray oo maanta aan looga baqayn haddii ay baydmayay inuu leexo ilaahay idamkiisa subxaanahu wa tacaala waa qaran taaba qaaday waa qaran tis qaaday waxa muujinaya labadaa eray maanta oo keliya 22 sano ayuu qaran ahaa oo loo dabaaldegaya haddii aan la aaminsanayn ujeeddada ay xambaarsan tahay qarannimadaasi ma ahaateen maanta ma intaa soo gaadheen mabaadi hadaf iyo himilo siyaasadeed ayuu xambaarsan yahay waxay xambaarsan tahay qarannimada Soomaaliland maanta nuxurkaasay xambaarsan tahay nimada saldhigeeda ma waxay naga maqan reer Burco maanta qaran baynu nahay isku tiirsani iyo walaalnimo iyo midnimaynu ku gaari karaynaa wallahi nabadaynu ilaashanaynu ku gaari karaa inagoo gacmaha haysanaynu gaari karaa waanaynu helaynaa haddaynu ku sabirro waxay naga maqan waxba ay naga dhimaqan laakiin waxbaynu qabsanay badan qaran baa inoo dhisan waxaan u mahadnaqayaa ciidamada qaranka ee kala duwan ee u dub jira ee u soo jeeda ee hadiya habeen nabadgelyada ilaalinaya shacabka waxaan ugu baaqayaa inay ciidanka dhowrtaan shacabka waxaan ugu ballan qaadayaa inay ciidanka garab istaagaan shacabka waxaan ugu baaqayaa inay ogaadaan sharafta dawladnimadu inay ku jirto askariga gidaarka taagan ee qoriga sita anahay in aan halkan ka cadeeyo in hibiladii qaranku lahaa ee ahaa inuu noqdo dal madax bannaan oo arrimihiisa maamusha dunida la shaqeeya inay arrintaasi dalkan iyo ummadan ay u hirgashay jaamacadda Golis iyo jaamacadda magaalada Burco ayaa ardaydooduna waxay ahaayeen kuwo si cilmiyeysan dareenkooda u muujinaya inkastoo bahda waxbarashadu guud ahaan ay ahaayeen kuwa ugu ubuucda weyn leh ee maanta ka dhex muuqanayay munaasabadan dugsiyada aadka uga dhex muuqanaya waxaa ka mid ahaa dugsiga Ilayska Togdheer dugsiga Sheekh Bashiir dugsiga Sheekh Ibraahim dugsiga Jamaal Cabdinaasir Amal Al-Faaruq iyo dugsiyo kale oo aad u tiro badan kuwaas oo dhamaantood baa kuwa ka sheegan maanta munaasabadan gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu sheegay in ka badan 42 arday inay gobolkan uga diyaar garowday xuskan iyo Burcaba waxa ku cusbaa waxay ahaayeen fardo aad u tiro badan dadka reer Burco ah dad reer guuraaya ayaan ka tagin dhaqankoodii geela iyo aqal Soomaaligana madasha soo istaajiyay ururka haweenka qaranka ayaa iyaguna waxay ahaayeen kuwa kaalin muuqato ku lahaa guud ahaanba maanta magaalada Burco looma kala hadhin xuskan baa la oran karaa waxaana ay Burco muujisay inay udub dhaxaad u tahay gobonimo la soo noqoshada Soomaaliland maadaama magaalada Burco 22 sano ka hor ay ahayd bogcadii lagaga dhawaaqay gooni isku taaga iyo qarannimada Soomaaliland dadka reer Burco ayaa maanta waxay ahaayeen kuwo ay ka goonayd in aan Soomaaliland gorgortan ku jirin shacabkeeduna ay hiil iyo hooba la garab taagan yihiin
sidoo kale waxa iyaguna ka qayb qaadanayay kooxo ka tirsan ganacsatada iyo laamaha dawladda oo ay ka mid ahaayeen ururka hiribleyda nafaqo shirkadaha leydhka ee beder iyo kaah shirkadaha isgaadhsiinta ee somtel iyo talisom iyo sidoo kale banka dhexe ee Soomaaliya iyo wakaalada biyaha Burco kuwaas oo cudud ballaaran ku muujiyay iyo sawirro indhuhu ay qabanayaan madasha dhinaca kalena degmooyinka hoos yimaada gobolka Togdheer ay si nabadgelyo looga dhacday xuskani iyadoo degmooyinka aan la xidhiidhnay wariyaasha aan u dirnay ay noo joogaan noo soo sheegayaan in guud ahaanba ay si habsamiyo uga dhacday degmada Qoryaale ayaa waxay ka mid ahay degmooyinka sida ballaaran maanta looga dabaaldegay xuska maalintan qaran iyadoo gudoomiyaha degmadaasina uu soo abaabulay guud ahaanba tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi bila jaamac khudbada dareen leh oo qarannimada Soomaaliland ka warramaysana oo halkaasi ka soo jeediyay degmada Warcibraan ayaa iyaduna ka mid ahay degmooyinkii maanta sida ballaaran looga dabaaldegay inkastoo aanu barnaamijyo ku soo gudbin doono degmooyinka kale aan wararkoodina soo gaarin laakiin sida habsamida leh uga dhacday waxa ka mid ah degmada Durruqsi Waraabeeye Riyo Xidho Dhoqoshay Beledhiiga Qorlugud iyo degmooyin kale